waxaa la socday rag agaasimo ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo ku yiri markii horeba na keenaan casho doonani cabdicasiis afrika beriyo kale uu safar ahay habeenka la dilay weliba hooyadiis iyo qaar ka mid ah ehelkiis ayuu caafimaad dibadda u wasaaradda la fasax u ka qaatay oo madaxda wasaaraddu way ogaayeen inuu safariyo wasaaradii nin ka mid ah ayaa yiri na keen caawaan maqaayadii warnaga dhaaf maadina maya taag weeyaan ku soo qaadanaynaa na keen waa la baxay maqaayadii yaa la galay ninkii la socday wax taleefanku hadlaa iska dhiga waa soo baxay ragga cashadii ay soo qaateen baabuurkay soo fuuleen markay fuuleen baabuurka maraayadiisu waa madowya cidda baabuurka wadda iyo kuraasay fadhiyaan qofa uguun baa sheegi kara kuraasay fadhiyeen weliba dhinaca afrika xigayaa la isku soo beeg ninka qaraxa isku beeg albaabku xiranuna isku dhuftay dhinaca uu fadhiyo haddii alla kuu roon yahay labada agaasime ay fadhiyaan waxaad u qabtaa in loo sheegayaa ka axad halkaas qofkaas in la hogaaminayey oo weliba baabuur meesha lagu keenay oo la daba joogay raggaana ka cad sababtoo goob aadan mar kasta imaan jirin oo aan joogto aada ku ahayn qof inta miino lagu soo xiro looma soo diro waa in xog la hayaa oo goobtaa taagantaa iyo meesha u socotay meeshaa maree la ogi waxaa intaasoo dhan ka sii dara hal qof oo wax la weyddiiyey oo baaris lagu sameeyey raggaa dilkood haba yaraatee ma jirto maalin aan ka hadlay tiifiga waxaan idhi war dawladdu baaris ha ku samayso codkaygiyaa laga saaray tiifiga qaranka waa dawladdu dilkaasoo u dhacay baaris ha ku samayso iyadoo intaa la diidaya codkayga laga saaray marka waxaan aaminsanahay labadaa dil inay iska leeyihiin filawaaga oo ah dilalka noocaasoo aan aqoon loo lahayn oo aan la filin waan ognahay dawladdu haddii alla kuu roon yahay dad isqarxiya ma lahan hal qof oo isqarxiya dawladdu ma heli karto laakiin waxaa la heli karaa dad la shaqeeyo oo u fududeeya waa fahansooma dad la shaqeeyo oo u fududeeyo ku basaasa oo goobtaad joogto iyo meeshaad marayso xogta siiya aa laga heli karaa dad shabaab la shaqeeya aa laga heli karaa waan ognaa marka qof isqarxiya dawladdu ahay ma lihi oo hal qof ma heli kartaba laakiin dad dawladda ka tirsan oo shabaab la shaqeeya waa jira dee mana cusbo ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale waa uu shan togayahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan marka labadaa dil waxaan isleeyahay waxay isaga mid yihiin filawaaga dadaan la ogayn inay ka shaqaynayaan dilalka saxaafadda gobaygaas shaki kuma jiro in laba shabaab ay wada shaqeeyaan qiso noocuu ku yimid ama yaad ula jeeday wuxuu ku yimid haddii alla kuu roon yahay marar badan oo aragnay in la wada shaqaynayo kaba soo qaad waxaad arkaysaa wiil shalay shabaab ahay oo isagoo shabaabka ka mida kuu hanjabahay oo ku soo wacay ayaa bil kadib wuxuu kaa hor imaanayaa isagoo sargaala oo fooneeyo wata oo istaaf wata shalay wiil isagoo shabaaba oo haddii alla ku bu'aala joogo ku soo wacaya adoo kismaayo joog oo kuu hanjabay hadduu magaalada kaaga hor yimaado isagoo sargaala oo fooneeyo wata oo istaaf ay la socdaan maxaa ku soo baxaya oo lagu leeyahay waa soo goostay nabad sugida laga dhigay sargaal nabad sugida waaye ama waa sargaal boolisa ama
marninkii bil ka hor ii hanjabaay aan soo goostay haddana garaada qaatay oo sargaala oo taliye ah oo istaaf wato gacan wato hadlay ma ogtahay yaa goorma fikirkii laga dhaqay ma bil inuu isku bedelay in kale yaa cadday kara masaasan soo dirsaday miyaa oo shaqadan waa loo soo diray mise dhabay ka tahay goosashada goormaa la ogaad marka ka abwaan guur ahaan dhacdooyinkaas oo badan oo waxaan aragnay weliba qofkii uu noqday sidii aan ka baqayn yaa marka asalka sababta ku yimid sidaasoo ah laakiin kadib si dhab ahaan u aragnaba abwaan wariyaasha arka in saaxiibadood iyo walaaladood iyo dadkii ay shaqo wadaagta ahaayeen oo maalin kasta la beegsanayo welina lagu cabsi geliyo haddii aad saas samayn weyso saasaan samaynaynaa oo u dhaganuglaada cabsida ay shabaab u jeedinayaan maxaad ku tilmaami lahayd ama maxaa fariinood u diri lahayd waxaan ku tilmaami lahay oo u diri lahay haddii alla ku roon yahay saxaafadda inay ka baxaan marba haddaad u dhaganuglaato hanjabaadda shabaab kadib waxaa ku qasban tahay sow raba inaad yeesho sida uu raba haddaa wax u sheegtana ummaddaad luminaysa sida uu rabo haddaad wax u sheegto adigoo cabsanayo isla naftaada ha kuu badbaadiyeene say rabaan wax ugu dheh adna waad dambaabaysaa ummaddana waad luminaysaa waxaa kuu fiican marka inaad iska dhaafto shaqada saxaafadda shaqada saxaafadda waxay u baahan tahay run qof cabsanayana run ma sheegi karo hadduu qofku cabsanayo run ma sheegi karo runta haddaadan sheegi karin iska dhaaf haddii kalena runta sheego xaqa ku dhimo